dad welba alanshe midibgo ne ewa unona kidano irko kalawa ohogan an lahayne ejeladahe warniyo malayow matayna isbaad ku haystay war maya waa heestii calanka Soomaaliya uu turjumay maday isaaqow bariga waxaad joogtaba calanyow calanshay miyaad noo keentay dad walba calanshay ku yiri oogayey tubtina calan raalli ahaa waa lagu gafaye war aniga uu sii gafay calanka akhiyay tubtiyay maxay waradhaay war ma haysiine waxaan loo joogin aad ku mashquulshaane madaxweynihii galmudug oo 8 bilood la foolinayay maanta dhashay war reer garan waa beeyaa magaajay mayleere araada 8 bilood hadda isku dhashtay dhicis waaye bilaa u laabneed 9 bilood isu jeeyno ka dhalada fadaasay war madaxweynaha galmudug inta uu sadhalan baa kumbuyuutar la saaro la sii ogaada qofka uu yahay aryaadaha hadda ka hor nimanaa nin u martiyay ninkaasu dibiyo u qali jira dadka u taga geed hoostii muddo markay jiifeen aan nin ka mida nimanka wuxuu yidhi hebel bal ogaada hadeer dibiyo u qalaahay mid maha jiifo qaaja bistiis la ah ayaa wuxuu yidhi dibiba iigama daree disaanba wax ka soo lahaynuu yidhi hadda haddii ilaahay galmudug muddaa la sugaayay wax wal ou ka keenay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin war bilaanta madii umulaan oo bilaanta kale booqashan ka seedayaan wali eraan gordaasana afarindood isjeer ilaahay masiin ku weelne tii dhalayna meeraase alxamdulillah wakan nagaasa reed mayka aalay wal umulikowde afar isdood isjeer ilaahay ku weela araada wiilkaad isnaa dhashti malmal maloo xirihe war doorashada ka dhacday galmudug tii koonfur galbeed meelay uga egtahay tii jubbalandna meel bay uga egtahay meelna waa uga duwantahay tii jubbaland meelay uga egtahayoo madaxweyne la sii ogaa iyo malxiisiin baa tartamay niman kaloo madaxweyneyaal sheeganayaana dhinacyaday ka joogaan intaas jubbaland ay uga egtahay koonfur galbeedna waxay uga egtahay annagaa wadanna haddii shaakir iyo macalin maxamuud la soo xidhana koonfur galbeeday toos uga ekaanaysaa midna waa uga duwan tahayoo beesha caalamku toosay madaxweynaha u hambalyeeyeen markii cod ku dhammaadayba oo madaxweynaha la doortay waa la aqoonsaday aryaadaha madaxweynuhu muga u dhashay kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca daa'inkaa dhigyay ma loogu duceeyey war may baa leeray ilmahooba dhaladan aawshongna kaadeen hoobangna kaadu waayaan edeershongna kaadeen hoobangna kaadu waayaanna abtishongna kaadeen angna kaadu waayana deedikuwiinayta hoobangna kaadaanna marhaba u war waxaa tiriba lagu yiri dawladdu lafta gareen iyo qoorta gareen waa u kala eexatay sababtoo ah ninna mucaaradkiisii inta ka soo xirxirtay bay meel bannaan madaxweyne uga dhigtay ninna laba madaxweyne ka horreysay tiri 3 baad ku tahay war ma haysiine madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed isla markii uu ambaliyay madaxweynaha galmudug maxaa buu ku xumeynaya masaxil dhibaan buu rabaa aryaadaha war ma haysiine dhaxal sugaha hirshabeelle goodax gareen isla markii uu hambaliyay madaxweynaha hirshabeelle ma kuweyda war dhaxal sugaha jubbaland oo margareen taleefon kula hadlay qoorta gareen uu hambaliyay war adeer jumhuuriyadda Soomaaliland miyaa hambaliyeysay mabaad dhalana dhowrtaysa ogdaha hore loo yiri aqoonsi meel miyaad ka wada maya hadhigi dhafoor wal iska dhayay gaasreeda ku kooyay leere war adeer sidiidaada mooyaane dhulo dhacaaga hubso horta xasan sheekh iyo sheekh shariif jubbaland waa u hambaliyeen tan haday ka aamusan soo ujeeda ma lahan war cali masaarka madaxweyne qorqor way ka qayb gali karaan diyaaradii rabaan waa raaci karaan war wasiirka hore arrimaha gudaha xildhibaanooda waa godsiga biinka galay kana mid aha musharaxiinta aan tartanka ka qayb gelin wuxuu yiri galmudug loo dhan yahan soo dhisayna yaa odawaymino wax soo dhisaya ayaantaan oo dhan xaw qabahaayay war filla tooriisi la dilay oo daawo raba may cayar banalta lagu kala buuxo garoonka gali raba war odawa galmudug asaa koow soo dhisay mid kale soo dhisay xaguu wada aryaadaha odawaay hadda ka hor mugow galmudug soo dhisay ee cabdikariin guuleed la caleema saarayay wuxuu yiri madaxweynahaad noo dhiibta waa kan muga qarafaan kii loo dhiibayow keenay xaw ku eedaa asaahee xeeray war doorashadaas waa lagu tartamay si cadaana loogu kala baxay war tartamba haddii ay tahay midaan waa lagu tartamay haddii lagu tartamay galmudug dhammaystiran baa laga rabaa wariyahan goolka haraf ya ka damboyta ma jirta madaxweyne baalon suubi dhamaystir ka kala fadaas ma ay war ma aysiin madaxweyne ku xigeenka galmudug ee maanta la doortay shaqaalaha madaxtooyadu ka mid ahaa liiri madaxweynaha ama wasiirada ka mid ahaa maxaa kugu dhacay adiga war nimayow galmudug madaxweyne inta la soo doortay xamar
soo dega ma rabto madaxweynaha rasmiga ah ee galmudugna waxaa loo aqoonsan doonaa ninkii galmudug gudaheeda ku sugnaada maanta waa maalin weyne maanta madaxweyneheyna maanta madaxiisa raage maanta reer galmudug ma dhaheen war abdulu taas meetoo ku seelinga jirtay oo dhegansoy nin lagu seexdo ha seexan xilbaa sida taa ha seexan soo jeedo suweynu feejigno ereenahe malku sugaha war madaxweyne lafta gareen wuxuu yidhi yaraanka ilmo gareen hambalyo aryaadhaha war ma haysiina madaxweyne farmaajo waa u hambaliyeeyey madaxweynaha la doortay iyo ku-xigeenkiisaba wasiirkii arrimaha gudaha ee arrintan ka soo shaqeeyana waa u hambaliyeeye haa runtiis way lan welba oo beer abuurud hoob ambata hambalyeeye ataaw ra'iisul wasaare khayrana waa hambaliyeeyaan ku dhahay abuurku buu sikridi yaa dollar ya yamyamootaaba soo hambaliyeeye xaad sugaysaa ashar usunan qornaba meelima ka soona cabdillow markaanoo kale waxaad dhihi jirteen nin dooran doorta ha u dhahdeen dadka sax u dambaajiseen war madaxweyne xaaf wuxuu yidhi wixii dhuusa mareeb lagu doortaa waa baastoo kale waana ognaho ninkii baasta keenaa la dooran rabaa war madaxweyne xaaf asagoo ciyaarta uu ka wada gaalgacyo ku quslaayo wuxuu yidhi 15 bilood ha ii dhimin weliba isagoo masaajid ku jiro u qoslay war xaaf kelmad kaluu yidhi wasiir kharafaana facebookiisa ku soo qoray doorashaan qabanaynaa yaa u dirsada wakaaladaydiiba waa kala noqdu yidhi waryaalahan madaxweynihii somalilan muuse biixi wuxuu yidhi dadka jooga baydhabo iyo kismaayo iyo beledweyne iyo muqdishoba annagayna sugayaan farmaajona sugi maayaan yaa taas muuse suudiyow ka maqlee wax kale ha la yimaado muuse biixi war midnimadiyaa soo dhowaatay cabdullow ka leexaa ka hortegine war haddii muuse biixi uu sidaas yidhi dadka soomaaliyeed ee jooga hargeysa iyo burca waxay sugayaan farmaajo war adeerta aad ku hadlayso ilaahay wax ka odhan doona war xaaji muuse suudi wuxuu yidhi labada gole ee baarlamaanka waa lagu khasaaray dalkani dadkan waxay u taleen ma lahan inay sii fadhiyaanna ma ahan ilaahay waxaan ka baryaa inuu dadka naga hor wado war xaaji muuse suudi waa mas-uulkii ugu horreeyey ee si saxa uga hadla waddanka xaaladiisa wuxuuna yidhi ilaahay duul naga fiican dadkaan ha u bixiyo xaaji muuse suudi waxa runta ka keenaya waa aqaanaa baasaboor kaluusan lahayn xaajigu kurburoog meegor haroog weerteena aryaadhaha muuse hadduu qurbajoog yahay run ma sheegi lahayne mugay xaaja xumaatow iska dhoofi lahaay horta nimanyow qofkii ku yidhaahda dawladdan iyo dawladdii hore la shaqaynta maamul goboleedyada tee ku fiican sow qarandumis maaha maya waxaa qarandumisa qofkii ku weydiiyey doorasho ma dhici kartaa weligiin bakayliya soomaalida hadda say u fakaraysaa dawladnimo ma goyso war ilmo laana ilmo isteed waa kala duwan yihiin ilmo laana nairobi ay iskugu tageen ilmo isteedna muqdisho nairobi waa war adeer ha wareerin ilmo laana naga dhalle war ma haysiine raadiyo kulmiyaha qalbi dhagax waxa uu weydiiyey war adeer habaalahan lagu soo faqin war hadagay wala ka ogaaytana waa erey war qalbi dhagax waa nool yahay naga tag xamaraan u soo socdaa ma uu yiri war hadalka naga dhex gelinina wuxuu yiri cafis hadii lagu weydiistay maxaad u cafin weysaa la yiri markaasuu wuxuu yidhi soomaalidoo dhan oo dambi ka galay soomaali cafitaa weydiisto war goormuu qalbi dhagax soomaalida wakiil ka noqday war muwaadin kasta oo soomaaliyeed baa xaq ugu leh dawladdiisa inay difaacdo qalbi dhagaxna muwaadiniintuu ka mid yahay axmed waranlow warkaas war usniin sheegi mahayna aryaadhaha warkay isku darina qalbi dhagax oo eena lafaa dembi laga galo uu yidhi soomaali maahan miya oo eena laf war ma haysiine dhallinyaradii bidaarta lahayti ma yeelatay yaxaad u la yaabaysin beer haddii roob ku da'o badarka soo bixi jiriya war dhallinyaradaas axmed siciida ka mid ah war shujaac miyaad ilowd kalgaar beeslaanga hayte war adeer waa iska dhowlowleediine annagu jaynihii baan iska difaacnay cudurkiisii warka ma fahmin xaggee tima lagu gadaa shakeeti iyo cabdinaasir soolaba timanay yeesheen war ma haysiina maxamed deeq timihiisu wejigay marayaan marka yarba koofiyada iska qaadayaah wuxuu leeyahay war heer makuleel baa jira aniga timo kuma ogaane buruka ma soo gishtayne war aniga kalsan ka daawaday war wasiirka arrimaha dibadda Kenya waa lahayd maxaa ka rabtiin ha ku mashquulinina aryaadaha warkaan iska dhaaftiin waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha la doortay waxaan dhihi lahaa qoor gareeno madaxweynahaanyow haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo